بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ونكسن. waxaan ugu hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakeysan ee Ciid Fitriga. Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsaneyd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakeysneed ee Ramadaan. Munaasabadan farxadda leh ee Ciid Fitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhamaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxadan maalmahan barakeysan ee ciida ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku Ciid Mubaarak. ciidani waxay ku soo aadaysaa iyadoo adduunyadu ay la daalaa-dhacayso sidii la isugu dayi lahaa in wax looga qabto cudurkan adduunyada aafeeyay ee loo yaqaano COVID-19 iyadoo dowladda Soomaaliyeed dhammaan hay-adahooda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isu gurmadeen si looga hortago cudurkaas ayaa weli haddana waxaa muuqata calaamadihiisii inay sii socdaan. sidaas daraadeed iyadoo la ciidaayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha is ilaaliyaan, ha la kala foojignaado, qof waliba ha is ilaaliyo, ha xirto mask, qof walba oo gurigiisa joogi karana gurigiisa ha joogo. waxaan halkan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda uga mahad celiyo dadkii Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin taagnaa sidii dhibaatadan ay usoo bilaabatay. waxaa ugu horeeya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed, gaar ahaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku afurayay isbitaal Martiini u taagnaatay wadamada dariskana aragtidu waa ka sugnaatay. ra'yiganagii hore iyo macluumaadkii hore ku dhisnaana sidaasaan kaga noqonay. berri marka waa ciidaynaa insha Allah taala. ciidukum mubaarak wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. sidaas iyo ciid wanaagsan iyo hambalyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaada ciidda kula tukaday dadweynaha garoonka kubadda cagta ee degmada Luuq ayaa ugu baaqay in nabadda laga shaqeeyo. qodobka koowaad waa nabadgelyada deegaanka Luuq nabad u baahan yahay. dhammaanteen waxaan ku qurux badannahay oo sharafteena iyo deegaankeena iyo gurigeena u baahan yahay waa nabad. nin kasta halkaan fadhiyo waxaan ka codsanaynaa inuu ka shaqeeyo nabadgelyada uuna gacan siiyo wax kastoo nabad u kaalmaynayo wixii nabadda lid ku ah ka fogaado oo uu ka hortago ayaan ka codsanaynaa dadweynaha maashaalla muslimiinta ah. intaa kadib qodobka labaadna rabana waxay kiilahay diinteenna haddii annaga muslimiin baanu nahay qof kastoo halkaan fadhiyana diintu waa kelika yahay wixii diinteenna iyo dhaqankeenna iyo nidaamkeenna islaamiga wax u dhimayaan Soomaaliyeed wada ciiday aan ku ciid caafimaad ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo. waa idin salaamayaa muslimiinta meel kasta aad joogtaan. ciid mubaarak waan ciidahaynaa kullu caamin wa antum bikhayr. ciid wanaagsan aan leenahay muslimiinta meel kasta joogaan. ma ku faraxsantahay inaad Soomaaliya ku ciidid? ha yaa salaamaysaa ayayday oo xaawo habiya hadan habiya Saudi habiya Kifah iyo abti Ahmed abti Mawlid abti Jibril abti Shamake. ciid wanaagsan aan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. dhammaan muslimiinta meel walba ku kala nool yihiin waxaan leeyahay farxad ku ciida. waxaa si gaar ah u salaamayaa waalidiinteyda iyo asxaabteyda dhammaan anoo soo kala goobaynin dhammaantood salaamaya. ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulligood meel walba adduunka joogaan kullu caam wa antum bikhayr. waxaa waaye munaasabada ciidul fidriga maalinka koowaad lagu wada jira ummadda inta wada macnaha afuran oo maanta macnaha ciidayaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr meel walba aad joogtiin waan salaamayaa dhammaan. kala beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho ayaa sanadkan hab casri ah loo diyaariyay iyada oo loo dhameystiray agabkii ay ku damaashaadi lahaayeen carruurta ka
mahadnaqaynaa waxaa kaloonu mahadnaqayaa idinka oo ah bahdii saxaafadda oo had iyo jeeraale jecel inay ka farxiyaan carruurta oo u yimaadaan oo tusaan inay carruurtu leedahay garab waayo waxay jecel yihiin carruurtu inay tiifiyada iska arkaan markay meelahaasoo kale ku xariisan yihiin aad baan idinkana idinku mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay jazaakallaahu khayran edu maanta waxaan leeyahay dhammaanba muslimiinta gaar ahaana ummadda ku nool Somaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak halkaan joogna waxa weeye xaruntii agoomaha ee Hargeysa waxaa maanta noo sharaf ah in carruurtii ay si fiican ugu ciideen oo ay u ciideen sida carruurta aabbaha iyo hooyooyinka leh say u ciideen si ka si fiican wali way sii ciideen ma karaaba waxaan halkan aad uga mahad celinayaa dadkii faraha badnaa ee sida fiican ee carruurtu u ciiday maanta ka soo farxiyay aad iyo aad wad mahadsantihiin kow iyo laba ma oran kare waxaan dhamaantii waxaad leeyahay waad mahadsantihiin xaruntani sida aad ogtihiin waa xarun dawladeed waa xarun ku jira carruur ka badan 500 oo carruura oo isku jira carruurta agoonta iyo kuwa aan ruudka lahayn dariiqa la dhigo ee u baahan in la caawiyo oo mustaqbalkooda noqdo mustaqbal ifaya dhammaan waxaan leeyahay horta ciid mubaarak carruurta ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa maamulka iyo shaqaalaha iyo ciidanka waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta dhammaantood waan shaqeynaa heega baan nahay qof shaqaali ka maqan ma jiro dhammaantood waxay u shaqeynayeen heegan u yihiin siday uga farxin lahaayeen carruurtaasi ku jirta xarunta agoomaha Hargeysa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan rabnaa inaan oranno ciid wanaagsan ciid mubaarak gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee maantay aan sida farxadda ah ku wada ciidayno dhammaan meelay joogaan baa waxaan leenahay ciid wanaagsan waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay biliiska Soomaaliyeed inaan sidaan sharafta leh oo isdhex socodka leh oo nabadda leh inaan oola ciidno dhammaan shacabka Soomaaliyeed inaan oola ciidno ayaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waa ku mahadsantihiin ciidda wanaagsan iyo sida sharafta leh oo aad ciidanka biliiska iyo amniga oo la shaqaynaysaan oo oola ciidaysaan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah haddii Ilaahay mar walba saas bay noo wada noqon doontaa mar kale waan idin mahad celinayaa dhammaantiin saxaafadda iyo shacabka iyo ciidanka biliiska ee meel kasta jooga ee sugaya inay dadka amnigooda inay shacabka ku ciidaan si nabad ah waxaan leeyahay ciid mubaarak aad baa u mahadsantihiin